nuxurka aqoon isweydaarsigani maanta ka dhacay wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland ayaa salka ku haya sidii looga hortagi lahaa hadiiba uu dilaaco cudurka xabeebka oo ku dhaca xoolaha. waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta wasaaradaha xanaanada xoolaha, arrimaha gudaha, ganacsiga, madaxda hay'adda Sahasba, ganacsatada xoolaha iyo mas'uuliyiin kale. waxaana lagu jeexjeexay qaabka ugu wanaagsan ee la iskaga kaashan karo ka hortagga cudurka xabeebka oo xoolaha ku dhaca, kaasoo lagu tilmaamay inuu yahay mid dhib ba'an ku haya xoolaha nool. laba bari ayuu soconaya kulankani waxaana ka hadlay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland Saciid Xasan Shire. wuxuuna tilmaamay wasiirku inay ahmiyad hufan la siiyo sidii looga hortagi lahaa cudurrada ku dhaca xoolaha siiba cudurka xabeebka oo degdeg ah. cudurro badan baa xoolaha noqdaan, laakiin kollay intii kooban oo wax degdeg ah markaa ama la garan waayo ama cudur hore u jiray oo dilaaca barinta loo soo weerursanayo xoolaha dhoofay cashuur baa laga qaadaa. wasaaradda ganacsiga hadda meesha kuma arko waa wada shaqeeyaan, caafimaadka waa wada shaqeeyaan, waa cudurro xoolaha iyo dadku isu gudbiyaan ayaa jira. arrimaha guduhu gobolladii bay joogaan, amniga booliisku dee iyagaa sugaya amnigii. wasaaradda qorshayntu waa wasaaraddii wakiilkayna oo ka ahayd arrimaha dibadda oo dhan. marka taa lafteed muhiim waxa ah in bal wax la isku beeriyo oo wada shaqaynta shaqooyinka wasaaraduhu iyo say isugu xirmi lahaayeen lafteedu. Dr. Maxamuud Xasan Cali waa dhakhtarka hay'adda Sahasba u qaabilsan dhanka xoolaha oo waraysi gaar ah siiyay Home Cable TV ayaa sharaxaad dheer ka bixiyay ulajeedka kulanka iyo waxyaabaha laga filan karo inay ka soo baxaan. inta tijaabo ay soo mareen maanta tijaabada waxa mareeyay cudurka xabeebka haduu dilaaco xabeebka sidaan ognahay waa cudur aad u faafa xoolaha ku dhaco oo garanaysa astaamo u gaar ah. diyaar garowgiinani muxuu faa'iido hadeer u leeyahay xoolo dhaqatada? waxa xoolo dhaqatada faa'iido u leeyahay sideedaba waxa wanaagsan marka balaan la sameeyo balaanka in la tijaabiyo oo lagu tijaabiyo in meel isugu yimaado waxyaabaha la qoray iyo cid kasta kaalinta ay ku lahayd inay aragto oo la aqristo. waxaan sameyn doonaa xaalada ay abuurayna inuu cudur ka dilaacay deegaanka mid ee deegaanada Puntland sida Dangori oo kale cudur baa ka dilaacay. waxaana intiisa badan looga hadlayaa qaabka ugu wanaagsan ee looga hortagi karo cudurrada faafa ee ku dhaca xoolaha sida cudurka xabeebka. waxaana kulankan soo qabanqaabiyay hay'adda Sahasba.